Saxaafka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi ayaa wareysi kooban oo siiyay telefishinka madaxa bannaan ee Space Channel ayaa uu kaga hadlay xaaladda guud ee gobolka Gabiley. Saxaafka gobolka aan ku booqanay xafiiskiisa ayaa waxa uu ugu horreynba ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Gabiley waxaanu yiri haddaan idinka warramo guud ahaan xaaladda gobolka dhinaca nabadgelyada gobolka xaaladiisa nabadgelyo aad bay u wanaagsan tahay wax dhibaato ma jiraan waa iska nabad qabnaa kulli waxyaabaha gobolka hadda ugu yara ayaamkan ay hawshoodu soo yara bilaabantay waxa kamid ah taariibta oromada oo nagu haysa oo culeysa taasna waxa weeyaan waxaan insha Allah bidilaahi kariim haddana hawlgal wanaagsan waa laga qabtaa oo waxa weeyaan dee habeenkii ama maalintii ugu yartay waxaan ama 200 ama ayaanu garanaysaa ilaa oo qabanaa waan talaabana waan ka qaadi doonaa anagoo kaashanay laamaha amniga sidoo kale mar aan wax ka weydiinay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Gabiley gobolka kuley waxa ka dhacay abaaro baahsan oo soo hayay muddo 5 bilood ka badan anigu gobolka hadda waxaan joogay bil iyo dhowr iyo 10 casho maalintii aan soo galay ilaa iyo hadda mar salka dhulka maanaan dhigin wuxuu baan ku jirnay gurmadka abaaraha meel laga soo qayliyay meel dee waxoogaa wax dee taakulo aanu geyno qiimeyn aanu samayno kormeer aanu samayno markaas waxa aanu samaynay oo ilaahay khayr siiyay iyaguna aad u shaqeeya gudda abaaraha ee heer gobol runtii gobolka intii abaaruhu ka jireen ee anigu aan joogay dee gurmad fara badan baa soo gaaray gurmadkaas oo ku yimi baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu sameeyay ee ku wajahna abaaraha gobolka ama gobolada galbeedka ka jira iyo samayntii ama ku dhawaaqistii guddiga abaaraha ee heer qaran ee uu gudoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenku intaasiba waxay noo fududeeyeen in dee gurmad nala soo gaaro ama hay'ad ajnabi ah ka timaado ama hay'ad islaami ah ka timaado ama dadweynaha reer Soomaaliland oo de ilaa wad garanaysaa burco oo kalaabay ka timid oo laba jeer wax naga soo gaareen Saxaafka Gabiley aanu sidoo kale wax ka weydiinay xaaladda abaareed ee gobolka Gabiley iyo sida ay uga qayb qaadatay xukuumadda oo garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa waxa uu ku jawaabay gaarsiin waxa weeyaan markula dawladdu iyadu dee cagta banagama dhigin haday raashin tahay haday biyo tahay haday qayladaan tahay oo markasta ay deen ugu qayladaan in waxa la soo gaaro ayaamahan waxa ka curtay roobkii guga waxaan oran karaa markaan qiimeyn ku sameeyo gobolka percentage hadan ka dhigno inta roobku helay inay tahay 25% macnaheedu waxa weeyaan macnaheedu 5% wali wax roob oo gobolka helay waqtigan oo kalena waxa la yiraahdaa waa waqtiyada ay ugu halista badan tahay oo waxa la gorogoro la yiraahdaa oo neefkii xoolaha ahaa ee intaas oo dhan jiilaalka soo hayay dhibicda horeysa way dishaaba iyadoo marka horeba dadka xoolihii ay ka baxeen oo abaaruhu ka laayeen mar labaadkana waxa weeyaan dhibicda horeysa way dishaa qofka aanay helinna waa marka aanu meel la u dhaqaaqinay suraahdo batro macaaw ku heli mise baribu ku heliyo dhowr ka cisho ka maqay isaguna halis badan ayaa soo gaadha waxa kale jira gobolku waa gobolada ugu waaweyn Soomaaliland xagga beeraha markaan taa leeyahay dee intaas oo dhan marka ay abaari soo haysay wax beera oo imika dee ay ka socoto hawli ma jirto waxa soo jeedin lahaa baaq dhinacyo badan ku wajahan oo ah waxa loo baahan yahay hadda cuntadii waa loo baahan yahay carafkii xoolahana waa loo baahan yahay oo xitaa meelaha roobka ka da'ay wali waxba kamay soo bixin oo waxa weeyaan waxa ka soo baxay jiro xoolihii waxay u baahan yihiin halkooda inuu geyn karo inuu carafka xoolahana waa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay maadaama inuu guda aw curtay oo la filayo in roob أو ينادوا بإذن الله الباري
in laga caawiyo dadkii almost waxaan filayaa sida warbixinta ku hayo beeraha gobolka Gabiley 50 kun oo beerood inay ka badiyeen 50 kun oo beeroodba abaar baahsan baa ku dhacday in dadkii laga caawiyo qodaalkii beeraha oo waxa weeyaan haday hay'adaha caalamiga tahay haday gudida abaaraha ay heer qaran tahay haday dawladda tahay in laga soo caawiyo si ay dadkii u soo kabtaan oo ay ugu diyaar garoobaan. isagoo Barasaab Xamse sii wata hadalkiisa ayaa waxaan wax ka weydiinay gudida abaaraha iyo xaaladaha kala duwan ee ay soo siyaabaha dadka ay abaaruhu saameeyeen wax loogu gaarsiiyo. qaybin horta assessment bay soo qaadeen gudida abaaruhu gobolka oo dhan bay u baxaan gaadiidka waxay ku shaqeystaan gobolka haday gaariga tahay haday kamaayarka tahay yani waxay ku shaqeystaan gaadiidka gobolka meelaha ugu daran assessment-ka ay soo qaadeen meelaha ugu daran way sii kala liitaan meelahu ayaa markaa wixii aanu hayno ama wixii naloo soo sheegay in naloo soo wada aan ku address karayna oona halkaa iyo halkaa iyo halkaa waxaan filayaa gobolka Gabiley meel aan oran karo maanta waxba ma gaadhin inaanu jirin. gabagabadii maraan Barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi wax ka weydiinay qorshaha dadka danyarta ah ee abaaruhu saameeyeen ee ku teedsan hareeraha magaalada Gabiley ayaa waxa uu yiri sidoo haddii laga tagi waayo dadka ku hareeraysan degmada Gabiley lafteeda ee xaafadaha koonayaasha oo iyagu aan magaaladiina ahayn miyigiina ahayn oo xoolo yar yar beero yar magaaladooda haysta dadkaas oo iminkan ay noo qorsheysantay insha Allah biidnillah albaari in maanta wixii aanu hayno aan wax ka gaarsiin rasmi markaan ka hadalno iminka magaalada ma oran karo dad xerooyin ku jira oo qaxootiya oo xero qaxooti ku jira ayaa jira ma oran karo laakiin way jirtaa oo la iska ma indhagtiri karo oo de magaalo kasta Gabiley qurama hay'adda caasimadda ay joogaan dad yari magaalooyinka oo dhan bay joogaan degmooyinkay joogaan laakiin awoodda waxa la saaray qofkii de xoolihii abaartu ka haysay ee beertii abaartu ka haysay ee waxa weeyaan de dhinac walba ay abaartu ay ka haysay waxa laga yaabaa qofka magaalada dugtigan inuu biyaha ka sida uu helayo kaamiga jooga si ka fudud inuu ku heli karo laakiin kaas waxa laga yaabaa biyana ma haysto baadna ma haysto raashin ma haysto baahidii oo dhan waa isdul saaran marka kulay insha Allah biidnillah albaari waanu qoladana waanu wixii aanu awoodi karo iyagana waanu kala Barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi waxa uu baaq cod dheer u diray gudida heer qaran hay'adaha samafalka walaalaha muxsiniinta ah waxana uu yiri baahiyaadkii iyo wixii looga baahnaa anaga gaarsiino horena waa gaarsiinay imikana waa gaarsiinayna waxaan si ugu baaqayaa hay'adaha khayriga ah gudida abaaraha heer qaran hay'adaha caalamiga local NGOs-ka dadka muxsinaadka ah ee waxa weeyaan hawlaha ay ka qayb qaata dadweynaha reer Soomaaliland gudaha iyo dibadba khaasatan dadweynaha reer Gabiley haday baayac mushtartay haday aqoonyahantay haday tahay qurba joog inay ka soo qayb qaataan restocking macni dadka xoolana waa loo iibin karaa ma aha qodaal oo qura dadkii reebiyaha baadiyaha joogay xoolana waa loo iibin karaa oo waxa weeyaan waa laga caawin karaa xoolihii ka baxay dadka beeraleydaana oo iyagu ah majority ahna in laga soo caawiyo sidii ay uga soo kaban lahaayeen abaarta oo qodaalka laga caawiyo oo waxa weeye saacadaha qodaalka laga caawiyo si waqtiga guba ay ugu diyaar garoobaan. Farxaan Cabdi muqbaaya horta Space Channel xafiiska Barasaabka gobolka Gabiley.